soo dhawaada kuna soo dhawaada intii aan hore soo galnay golaha siyaasadda oo ah dii aad dantaada moogaan weydo oo ta qaran ka shaqeyn weydo taaduna dhisi mayso markaa maanta waxaa soo gasheen halkii ugu sarreysay baarlamaanku weeyaan ee siyaasadda lagu hogaamiyo oo qarankoo dhan aada eegayso waxaad ku soo dhawaataan gardarro badan ood qaadataan waxaad ku soo dhawaataan xagxagasho badan oo xaq laydinku lahayn ood qaadataan waxaad ku soo dhawaataan oo idinku adag adaa yidhi dadkii iyo doorta gobolkii waa lagu soo doortay inaad qaranka iyo gobolkii waxu qabataan la doonaya ra'yiga wanaagsaneed waddaa inaad ku qancin karto dadka aad talada wadaagtaan ee faraha badan intaas baa laga rabaa dadkaasta qofka kaa soo horjeeda ra'yigaa aada la guuxaysaan eed waxaasoo dhiba usoo martaan eed nin walba u bariday ee ku aanidaa weligii u hadashaan aad waxaad soo marteen aad soo marteen eed iminka inta haraalku haysta lagaa doonayo kharash lehe hawl lehe hadal lehe raalgelin leh aydaan gaari karayn wuxuu ahaa fikir baan hayaa fikirkaasi aan doonaya dalka ugu horumariyo gobolkaba ta kuugu adaga laydka raba waxa wey inaad fikirkaa ka qancin kartaan intaa talada iska dhaxayso ila keliyaa goy kari maysid waa gobolladii oo dhan waa dadka oo dhan haddii kale fikirkaaga ma soconayo hadduu socon waayana laba bay kuu tahay inaad carruurtooda xarbushto oo waxay ka dhacaana buuqa iyo isqabsashada iyo shaqaaqooyinka ay ka dhacaan iyo inaad niyajabtood meel iska fadhiisato midna ogaada waxaana gasheena siyaasaddu albaab laga soo galay leeda mid laga baxa mara kari maysid u fiirsan odayaasha gawoobay ma aha siyaasiyiin odayga ilaahay wax siiyey ee reerkiisu barwaaqayay ee reerkiisu tamariyey markuu daalu geeska fadhiisto u canaan badan yahay waa kaalay warraba war maxaa la yidhi war miyaan waxa weydiinaya war see wax leedihiin waa markuu taa gabeeda waaba si adoo qaranka oo dhan ama gobol dhan hogaamiyey intaasi waa iga hoga tusaale hawsha idin tahay aad bay udhib badantay maanta waa kulan ka horreeyey waa ogyihiin waa ogahay inaan wax badan idinka buuxo oo mustaqbal ku saabsan oo dhibaatada soo marteen ku saabsan oo imika lafihiina u saabsan oo aad doonaysaa ina ka hadashaan anigu waxaan dhisayaa yaasiin brofessorka iska dhaaf macalinimadii iska dhaaf markii afweerada dagaalamaya isagoo professor shaqada laga eriyey oo maqaaxyaa furtay fuka candiidka ahaa iskaba dhaaf waxaasoo dhan 1991kii shirkii ugu horreeyey ee nabad lagu dooro garaad cabdilqani iyo isaga iyo ninkii la odhan jiray fagare iyo rag iyo odayga sakraan ina cali caad adeer dee dad baa jira le ahl beder oo maalinta adkayd dalka wax ka qabtay barasaabkii ugu horreeyay 91 iyada oo dee qori wadsta ninkii ka hortagay wahaa nabadii ka soo bilo 7 shilin bar laga qabtay ninkii ku jiray oog baa laga bilaabay reeraha laga heshiisay 7 maray shirkii berbera kii burco kii bood dawladdii ugu horreysay waxaa la leeyahay wixii dagaal socda tii cigaal bal hadda eeg intaasoo caafimaad darre iyo dagaal iyo somaliland taarikhdaasuu ku leeyahay nasiibna uu ku leeyaho maalintii aan forinka u dhiibay dee intii uu joogay wixii khayr soo kordhay waa ogti dadaal laha ahaato niyad sabidda uu somaliland ka qanuha markaa intaasi waxay iga tahay kumana ammaanaya kamana iibinaya waa taarikh faagta oo taala marka arrintani waa arrin aada iyo aada masiirka somaliland uga dhab oo la doonayo waana messajka arrintaa ka dhiibay doorashadaana waynu gelaynaa tartankaa ololahaan xoog baynu gelaynaa kulmiya doorashada guushu ka gaadhay hadduu 100 xildhibaan reerka buu gaadhay caalamka oo dhan iyo somaliland ayaa u qirtay kulmiye inuu danta somaliland iyo somaliland ictiraafkeeda iyo halkay ku socoto uu ugu hawl jiro ka markhaati furay waxaa markhaati dhacayaa kulmiye u dhacaya kulmiyana waynu u sibannahay nina keligii male madaxweynena male guddoomiyana male wasiir male waa loo kala badanyay mas-uuliyadda waa la kala qaadanaya laakiin qof kasta oo kulmiye ah ayay guushaas somaliland mucaariya muxaafida u qiraysaa caalamkiina u qiraya guur ka weyn oo la garan maayo afrika iyo caalamka way la yaaban yihiin dal aan la ictiraafin oo dhaqaale haysan
oo doorasho qabtay oo mucaaridku weliba la silmay ama baarlamaankii mid dheer yahay oo haddana raalli ka waa maxay de waa biseelka kulmiyadde maxaa rifoodka u qabanayni mayna inagu yeelano ambaanaya sacabka laaba adag taasi aad barraa hore u socon weyd xisbi loo tumaa carabtay ka socon lahayd 99% ma socoto bilaad war halka ka qancisa siday ku timi managa dhalay lahayd ma waxyaalo kala jira waa laga darsi doonaa food waliba wuxuu leeyahay waxyaalo unexpected waxyaalo aan la firin baa soo baxa kulmiye asad buu haystaa aaminaad dalka oo taariikhi ah oo ummaddu maanta ku aaminsan tahay maxaa la soo gaaray in Somaliland iyada oo midaysan oo is ogol saddexdii xisbi mucaaridka oo mid la hadlay rijmada oo dhan ay safada galeen ee natiijo wada qaateen ay sabriyeen bina dadkaagiyo u wada jeedsan meel maxaa ka weyn xisbi muxuu gaadhay guule ka weyn dan campaign tawo ku galeen 100 iyo soo xariisano aan aasteedkii 7 haysanaa la isku wada haysto oo lagu waxay maxamed bin kula tagay وإله هو تصالين هذه أدوى مهتتي والسلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم مضريال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام كدب مرة كوال وحنا قرأ سودوينتا يومات الدعاء مدحونا ينتا مسؤولين على حكومة هذه بان قولي سو دوينيا وانا يندو اي ما يوسع لا شيء ان الهي حلكا ما لم حلكا قادا حل عرس بعد ومدبر كان صاحب بدل كسو فديين او يسبدل قلبي لو تاني او ما دعي بشان ان شاء الله يتقادين runtii waxaan ku qaadeen maanta magaca xisbiga kulmiye ee intii ka fadhida oo sodolida aad ku soo baxdeen marka hore waxaan xasuusinaa daacadda eebe in qof walba ku horeysiiyo daacadnimadu iyo kitaabka gacanta aynu u saari doontaan qiimaha uu leeyahay in nin walba culeyskeedii mas-uuliyaddeeda wilaasho isla markaana u adeego qarankiisa waa laba mas-uuliyad bay nafuulaysa qaranka guud ahaan baa ina saaran oo magaca yareen sheegana isku qaybqaybin ama gobol ama labayn waxa ka weyn qarannimada aynu maanta u soo halgannay ee dhib badan loo soo maray ee maanta ugu dambeysay aynu calaamadeynay dimuqraadiyadeennii ordanka ay soo koraysay inay meel aad u qiimo badan ay soo gaarsiinay taa cidda si dhammaystiraysaay waa golihii labaad baa tihiin ee dimuqraadiyadda lagu soo doorto idinka maanta ayna sii dhammaystirtaan dimuqraadiyadda iyo sharafteeda kalaamadeeda qabadii dalka u taalina cidda gufeynaysana raba inay dhammaystirto wixii ka dhiibnaa shuruuc dalka u ahaa ee horumar u ah waa idinka xilkeedii saaran bay ka mid tahay inaad biniaadanku waa isku raacaan waa mabda xisbiyada waxaa loo samaystay in qabiiladana ka baxno intii isku mabdiyeeba ay dhan sibirta isu gashato waxaan u baahnaa dad reer kulmiya nahay inaynu qarankan sidaynu meel halka joogana inta kor sii qaadi lahayn inaan isku kaashano marka anigu waxaan idinku dardaaryaa in qofku mabdi'iyan golayaal la soo wada maray gola deegaan baa rag soo mareen gola baarlamaan la soo maray qofka biniaadanku waa inuu mabdi'iyan aaminsanaado meeshu ka soo baxay haddii meeshu waxuu ka soo baxay iyo xisbigu ka soo baxay wax ka dareemana si yani xisbinimo wax kuu sheego laakiinse qofku inuu maalinba meel fikriyada raqiisa oo maartay aan maalin badan lahayn inuu raaco looga wanaagsan ninka weyn markaan waxaan leeyahay inta hawsha maanta koowaad inayna sugayso horta nin walba waxaan ka qaban karna waana ka qabanaa aawada ugaasida salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu sidaa madaxweynuhu sheegay maanta waa isbarasha uun oo waynu isbaranaynaa liiskii magacyada waanu usoo gudbinay madaxweynaha idinkuna da madaxweynaha waa wada garanayseen waxay ahayd un maanta inaynu halkan madaxtooyada isugu nimaadno hawlina way inoo dambaysaa 6 gobol ninba gobol inuu ka hadlo intaasun baynu iyuun baan odhanayaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu alhamdulillahi rabbil caalamiin assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu madaxweyne ku-xigeen waad mahadsantihiin anigu miiska waxay ugu dambeeyaanoo madaxweynayaasha su-aalo weydiiya marka maanta xagga kale ka soo fadhiistay alxamdulilah
madaxweyne mahadsan tahay dhammaan waxaa soo dhaweynaya xildhibaanada gobolada Somaliland anoo ku hadlaya magaca gobolka Maroodijeex calaamadeedu ay maroodi ahayd waad mahadsantiin ilmaha yar xildhibaan ku soo dhawaada gobolkiini caasimadiina ku soo dhawaada gobolka marti kuma tihiin horeba ay joogteen madaxweyne raggan yaa garbihii aad ku duunaysay waa xildhibaanada baarlamaanka Somaliland xisbiga kulmiye taliye madaxweyne raggan ay soo yardaaleen dhammaantood ay mujaahidiin inuu reerkiisa ka soo dhaxalgamay soo dhawaada hadday reerkiisana martiqaad ay sameynayna ama gobolka Maroodijeexa maanta aan idin sheegi doonaa insha Allah taala ama santi madaxweynaha ku-xigeenka golaha wasiirada iyo asxaabtooda xildhibaanada cusub ee golaha kulmiye waan marka hore waan salaamayaa waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh maanta waa maalin weyn waxa weeye maalin aan ka soo baxnay hawl culus oo ah tartankii adkaayna soo galnay ee ogeydeen alxamdulilah ilaahay hadduu naga dhigo intii soo guulaysatay maanta halkaas kugu timiday marka hore ilaahay aan xamdi naqdo inaguna aan waajibaadkii layna soo doortay iyo hawshii laynoo egmaday aan noqono kuwa insha allah ka soo bixi doono taasi waa ta koowaad arrinta labaad ee aan muxuu ahaa halkan aan ka sheegahaya waxaan u mahadnaqayaa madaxweynaha iyo intii nagu casuutay xisbiga maanta inaan isbarano waa xawayaan barashadii koowaad إن شاء الله وحنا جايين دونا إن المستقبل خلنا إنه أذكر شيء سن دونا إنه سبران دونا حسب قالوا وحيا أنا قاعدين عايز واجب نوع إن قبلنا ديار بار معي هذا هاي حل بار نقول لك عايز هذا عصب ولا صوت دورتي وحيا بعد السلام يا برلابات هذا كل هذا جنايو قلت أول ما أنا بقولي لبعض برلاقو كوشري وانف يعني دبلا كلمة حول جينا أنت عندك بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام يا مدحوينه هاي مدحوينك يجي زيادة waxaa la aad iyo aad bay mahadsantiin casuumadan aad ugu soo casuunteen halka maaragtay ugu martiqaadaan ma nagu qaabishaanba runtii gobolka saaxil afar nin baa maanu kaga soo baxnay runtii ninkii ugu horeeya hadal badan hadalkiisa badan yidhi waxa muhiim ah waxa weeyaan inaan dadaalo doorashada ka soo baxnay doorashadaas xaraf badan bay leedahay xaraftaasna meel walba way taalaa iyo nafsiga hawl kale oo taalo u baahan inaan dadka dib ugu noqono aynu agaasino si magaranaysa aynu ugu diyaar garowno hawlaheena dambe iyo programmadeena dambe haddii aan la yidhaahdo aad iyo aad baan idin salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu madaxweyne ku-xigeenka golaha wasiirada xildhibaanada cusub shaqaalaha madaxtooyada dhammaantiin waan idin salaamayaa salaanta hore aan idin qadimo baan idinku salaamayaa hadalkaa yara socday anigu tog dheer baan ku hadlayaa aad iyo aad bay mahadsan tihiin madaxda qaranka kulankana noogu yeedheen ee isbarashada ah waan idinka ajiibnay runtii dee hawl badan baa inoo taalla hawsha inoo taalla ma yara tii hore ee hayseen ayaa mid kalena ku soo biirtay oo dee xil badan baa idin saaran ka xildhibaanna ahaan anagu diyaar baan nahay wixii hawla aad iyo aad way mahadsan tihiin aadna waan idin salaamayaa ya rasuulillah madaxweyne ku-xigeenka xubnaha golaha wasiirada iyo xildhibaanada iyo shaqaalaha madaxtooyada dhammaan waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaan kadib gobolka sool horta waxaan u malaynayaa inaanu nahay gobolka aqlabiyadda ugu weyn xisbiga u keenay inta horta waxaan idinku codsanayaa saxabka noogu tuntaan waxaweye madaxweynahana waxaan uga mahadnaqinayaa madaxweyne ku-xigeenka madaxweyne waxaanu u noqonaynaa saldhig xisbiga baanu u noqonaynaa xildhibaanada iyadan oo dhani intact baanu ahaanaynaa xildhibaano isku xidhan baanu ahaanaynaa xildhibaano difaaca barnaamijka xisbiga iyo barnaamijka dowladdaba haddii ilaahay yidhaaho baanu ahaanaynaa mara hadda waxaynu ka soo baxnay jihaad al-asqar marka waxaynu gelaynaa jihaad al-akbar oo xadiiskii nebiga marka jihaadku waa sida qaranimada loo hirgeliyey iyo barnaamijka loo wada iyo naftaa lala dagaalamayay oo naftaa la saxayay iminkana qarannimadu waynu saxaynaa oo aynu saxaynaa haddii ilaahay idmo aynu ugu horeyso sida dee baarlamaanka aan u maamulno oo barnaamijka xisbiga ugu soo hagno oo muxuu ahaa barnaamijka dowladda ugu soo hagno oo aynu halkaa guul weyn uga gaadhno markaa aad iyo aad baanu diyaar ugu nahay xildhibaan ahaan oo dhan markaanu isxuuraansanay
madaxweyne adiga iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo xukuumaddana waxaan idinka ilaalinaa inaad midnimada aanu maanta ku nimi meesha noo ilaalisaan oo sidaa nagula shaqaysaan oo aad naga ilaalisaan dayr inaad noo soo xidhaan ayaan aad iyo aad idinka codsanaynaa waana mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullah. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. mudan madaxweyne mudan madaxweyne ku-xigeen wasiirada sharafta leh iyo xildhibaanadaba islaanta islaamka ayaan idinku salaamayaa. mudan madaxweyne mar hadday tahay munaasabadani isbarasho iyo soo udhaweyn keli ah dee waxa la yidhi kulli makaan lahu maqaal annagana jawaabtu waxay noqonaysaa mahadnaq iyo inaanu dhownahay. waa ku mahadsantiin martiqaadka si qalbi furan oo shaqaalaha iyo cid kastoo khusayso ayaa nooga soo dhaweeyey. waa ku faraxsannahay, waa ka mahad celinaynaa. xildhibaanada iyadan fadhiyana waxa weeyaan mudamar buu kulmiye noqday. ragoo aas-aasay sida aniga iyo rag badan oo kale xisbiga la aasaasay iyo rag dhawaa noqdaba waa isugu jiraa. jalsadii iyo fadhigii koobaad aanu si fiican isula jaan qaadi lahayn waa kan baan filayaa. mar baan mahadnaq baan ku koobayaa ma dheeraynayo. aad iyo baan mahadsantiin dhammaantiinba. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. alxamdulilahi rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillahi sala allahu calayhi wasalam. madaxweynaha madaxweyne ku-xigeenka gudoomiyaha labaad ee xisbiga kulmiye xubnaha golaha wasiirada iyo xildhibaanada baarlamaanka ee xisbiga kulmiye ka soo baxay. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. hambalyada waxaan la qaybsanayaa madaxda xukuumadda. aad iyo aad waxaan idinku hambalyeynayaa guushii gaadheen oo aad iyo aad tacab badanna idinka gaadhay. raggii dee goobshooga ahaa ee maxaan ku dhahdaayey idin weheliyena ka qayb baan ahaa. dhibaatadeeda iyo xanuunkeeda iyo hawsheeda intaba intaa qaran la ekayd waa la soconnaa. waxaase ilaahayna hadiya inaad soo baxdaan. wuxuuna waa magac adduunyada waa la iska helaa, magacdaana lagu raadiya. siyaasaddana dee xoolaha loo huraayo macnaheedu maaha in xoola laga helo. waxa guul ah inaad soo baxdeen. waxaa guul ah inaad xisbigii xisbulxaakimka ahaa inaad ka soo baxdeen. waxaan qabaa guushiinana inay qayb ka ahayd. aba laga yaabaa inaad dee wax yaro hetanayseen, laakiin iyaga laftoodu dhinacyo badan bay waxtar ka ahayd. oo badan yahay dadku ku raagi maayo. waxaan jecelahay inaan mar labaadna hambalyada ku celiyo. waxaa inoo harsan sida casoowe u sheegay dagaalka kii weynaabaa inoo harsan. odaybaa halkan inoo fadhiya aynu rabno inaynu kursigaa guddoomiyaha aynu ku fadhiisano. aad iyo aad baan idin salaamaya. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. bismi illaah alxamdu lilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah. madaxweyne ku-xigeen golahan sharafta leh ee aynu maanta ku casuumnay xukuumaddu ku casuuntay xildhibaanadii inoo soo baxay waa golo barakaysan oynu ku ducaynay. waxaynu marka ugu horeysa fulinnay waajibaadkii qaran ee nasaaraa. marlabaadkiina xildhibaanaha xisbigeenni iyo xukuumaddii usoo baxay. xildhibaanada inoo soo baxay waa hambalyeynayaa, waana u mahad celinayaa. ilaahayna waxaan uga baryayaa kii dalka iyo dadkaba anfacay inay noqdaan. intaa waxaan raacinayaa waxa weeye xildhibaanadu waxay usoo baxeen saddexdii golo qaran golo ka mida oo golay sharci dejinta ah inay ka mid noqdaan, inay qarankan kaadaan iyo xukuumaddan iyo horumarka dalkeenna iyo halkaynu higsanayno in la gaadho. kelmadda qura aan dharaangaraynaya waxa weeye 82 xildhibaan baa dalka ka soo baxay. idinkooda xildhibaano qaran ah. waxaase idinku waajiba maanta shirguddoonku inaanu naga leexan. yaasiin loogu danayn maayo. waxaa loogu danaynaya qaranka. waxaa loogu danaynaya horumarkaynu doonayno inaynu higsanno. dalka sidii loogu wada shaqayn lahaa, horumar loo gaari lahaa, maalinkan maanta loo fulin lahaa wixii aynu daba baahnayna dowladdu u ahaa. waan ku dheeraayo. asalaamu calaykum. madaxweyne xildhibaanadan mar waan hambalyeynayaa, marna wuu ducaynayaa, marna wuu xusuusinayaa. mar waxaan ku hambalyeynayaa halganka adag ay soo galeen ee ay ku guulaysteen. waxaan madaxweyne halkan lafteeda ka xusayaa xildhibaanadii musharaxiinta ah ka socday kulmiye intii aan ku guulaysan. iyaga laftigooda waan hambalyeynaynaa dagaalkay la yimaadeen.
xil adag if iyo aakhiro mid isweydiinaya ilaahay subxaanahu watacaala ha idin fududeeyo gabdheen baa naga fududeeyo arrinka xasuusinta madaxweyne xildhibaanadu shaqooyin badan baa sugaya laakiin haddaan kala wara qaado ilaa 7 xil bay leeyihin koogu horeeya waxa weeye waa sharci dejinta ka ku xigana waa miisaaniyadda iyo ansixinteeda ka kalena waa dabagalka ka kalena waa nabadda door weyn baa ku leeyihiin nabadaynta iyo midnimada qaranka ictiraafka laftigiisa door baa ku leeyihiin oo baarlamano ayaynu doonayno ka dhigan dooranno ictiraafkeena kaalinteeda ku leeyihiin dadkii soo doortay laftigiisa waajib baa idinka saaran iyadoona laagin halkaa kaga dhaqaaqin madaxweyne baarlamanku waa 3 dhadhaar ee xukuumadda uu ka mid yahay sharci dejinta iyo fulinta iyo cadaaladda haddaanu 3 wada shaqayn way fashilmaan cidda fashilkaasi waxay dhaawac weyn soo gaarsiinayaan waa dadkeena wixii laynagu doortay oo aanu ballan qaadnay ayaa meesha ka baxay sidaa wax loo baahan yahay wada shaqayn sokeeya meelana 3 dhadhaar xisbiga mucaaradka uu ku jiro aad bay mahadsantahay. Asalaamu calaykum warahmatullahi wabarakaatu.